نبي عليه الصلاة والسلام مركل وحوت المامة 10 من الفضرة طبنش إلالية غص الشوارب شاربها قابية وعقل الضر وانا الدين ضر وانا عافي ما ضر انت شاربها لبحضه إن الوحد عب يسبه ودبقصده أو لقله فالحموية نبينا عليه الصلاة والسلام غص الشوارب حنو نفر بدنا ويكدلن كرار إعفاء اللحية قركو للبحو السواك عدا يقول لقد دالو بالكن للي إيمك الضوب كقشدة دينتين وحي سكتيبا يقو أفكي دوبيني إن أفكار نقضو وعرب كنقضو وعاد عاديك كحقضو وهي مظهرة للفم ومرضاة للرب إلهينا وذلك لنيسا أفكينا والنظيفينيسا بل دينتو waxay tiri shan xilli ayaa caadaygu waajib si noqonaya mid adag markaad hurdada ka soo kacdo iyo markaad weysaysanayso iyo cuntada markaad dhamayso iyo cinda tagayur الفم afkaagu markuu isbedelo uriya wixii la halmaala iyo cinda qiraa'ati القرآن quraanka ilaahay markaad akhriyayso wal istinshaqul ma sandarsiga iyo luqluqashada inaynu ku dadaalno waqasul adafir inaynu iska tartarno cidiyahan leeyamoodaya dugaaga ee aynu la baxayno ee noqday barandaheena hore dhalinyaradii la baxayaan cudurkay ku kaydinayaane aynu iyagana jarno bal waxay maraysaaba in la ilaahdo waa cidiyo ofishano waa la iibiyaa oo suuqa la tagaya oo hablaheeni iyo dhalinyaradeenii intay dhaqaaqaan ay naga tagaan ayay cidiyo soo iibsanayaan kulba labiskay gashanayaan ayay la midabiyeen ninba wuxuu yiri waligay mid kasta isa saarayo waligay tagogays laba tagogays ma saarin waligayna kumaynaan fikirin cidiyo ofishara inta suuqa la tago ayaa dukaanka laga soo iibinaya culimaduna aad bay uga hadleen ka iibinaya iyo ka soo iibsanaya iyo ka inantiisa raalida kaga ahiba xaraan weeye bal kuweeni caadiga ahaa ee ilaahay ina siiyay ayaa la yiri jara in ganacsiga business laga dayana dhibaatadeeday leedahay waqassu albarajim barajimta waxa la yiraahdaa waa halkay xubnuhu iskaga imaadaan faraha iyo fanaxyada in la dhaqo maanta maxay yiraahdaan gacmaha hal la dhaqo saamuun hal lagu maydho war diinteena ka horeysay wana casrimayna tiraado gaalku wuxuu faray gacmaha la dhaqaya iskuulada hal lagu wacyi galiyo diinteenu ka hor ayay tiri waqasul barajim meelay xubnuhu iskaga imaadaan ee fanaxyada ah aynu maydhno wanatful ibdi kilkilada iyo meelaha dhididayana in la rifo la nadiifiyo wa halqul aana nabigu calayhi salaatu wassalaam waxyaaluhu ina faray timaha hoosana wal istinjaa iyo in la dahaaro qaato oo suliga marka la galay si wanaagsan la iskaga nadiifiyo al madmada wal khitaan iyo in la iskudo oo la iska taro balagta iyo wixii la halmaala iyo jirka yar la jaro waliba ninka waa waajib dumarkana waa sunna weeye walaalayaal diinteenu nooca ayay uga hadlaysaa nadaafada in la isnadiifiyo xubnaheena meelaha dhididayana la qurxiyo bal nabigu calayhi salaatu wassalaam markale wuxuu leeyahay ida istayqada ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina midkiin haduu hurdo ka kaco oo uu hurdo ka imaado ka soo kaco gacanta iyo haanta iyo foostada yaanu gacanta gelinin fa inna ahadukum la yadri ayna batat yadahu midkiin garan maayo halkay xalay gacantiisu u hooyatay iyo halkay xoqday iyo halkay martay ma garanayo waynaynu xubnihii dhaqnaa waa goorma waa fi every day waa maalin kasta ma hal maalin maalinta farxalka adduunka kaalayo wasiirada saf soo galiye kili soo qaada dhitolkeena ku faraxalo umadu ha ku eegto kamarad ha laga duubo war maalin kasta inaad faraxalataa diinta ku farays bal waa waajib sharciya inta aanad weysaysan gacmahaaga dhaqdo